subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo isniin ah 22-ka bisha abril ee sannadka 2024. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinayaan oo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobadaan idinku hayo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo sheegtay in uu sare u kacay ka ganacsiga maandooriyaasha ee waddamada galbeedka afrika. haddaba maxaa arrintaas keenay? warbixin ayaan idinka haynaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mida magaalooyinka puntland oo ka cabanaya sare u kac ku yimi qiimaha shidaalka, kaas oo saamayn ku yeeshay maciishadda. gaadiidleyda ka shaqaysa magaaladaan ahay ama safar ha u baxo ama magaalada joogay dadka weligeed baa horta ku xirnaa baan ahay. wallahi niyow shidaalku waagii hore $5 $2 baa la siin jiray, tana kadhan $8 baa la sheegay. macnaha qiimo dhar korortan hadda waxaan qabnaa inay dadkan oo waqtigun waa xun yahay, lacagna ma jirto, dadka dad u naxa inay yimaadaan ama ganacsi hala yimaadaan ama dawladduba ha faragelisay ummadda shidaalka laga farageliya niyow. sidoo kale waxaad maqli doontaan dadka ku nool xuduudda bakistan iyo afghanistan oo ka cabanaya halista hadhaaga walxaha qarxa oo saamayn aad u weyn ku yeeshay noloshooda. waxaan kale oo idiin haynaa qaybta dambe ee idaacadda. gaadiidleyda ka shaqaysa magaaladaan ahay ama safar ha u baxo ama magaalada joogay dadka weligeed baa horta ku xirnaa baan ahay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa axaddii ku hanjabay in uu qaadi doono tallaabooyin dheeri ah oo adag oo ka dhan ah xamaas si uu usoo furto, ayuu yidhi lahaystayaasha israa'iil ee gacanta ugu jira. israa'iil ayaa haatan ku doodaysa in qaar ka mida maxaabiistaas lagu hayo magaalada rafax, hase ahaatee ma jiraan ilo kale oo madax bannaan oo arrintaas xaqiijiyey. afhayeen u hadlay milatariga israa'iil ayaa goor dambe oo axaddii ahayd sheegay in taliyaha ciidamadu uu ansixiyey dagaalka rafax, hase ahaatee faahfaahin intaas ka badan ma uusan bixinin. tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa xilli dalalka caalamku ay ka digayaan weerarka rafax. xataa maraykanka oo saaxiib dhowla ah israa'iil ayaa uga digay tallaabo noocaas ah inay qaadaan. hase ahaatee ciidamada israa'iil ayaa waxay bilaabeen duqaymo ay ka fulinayaan rafax, waxayna halkaas ku dileen ilaa 22 qof oo 18 ka mid ahi ay carruur yihiin. israa'iil ayaa ku adkaysanaysa in ay bilaabayso howlgal dhinaca dhulka ah. milatariga israa'iil oo la weydiiyey carruurta iyo shicibka ku dhintay weerarkooda ayaa sheegay in ay bartilmaameedsadeen xubno ka tirsan ururada xagjirka ah oo ay ku jiraan xarumo milatari. iyadoo israa'iil ay qaaday weeraradaas ayaa dhinaca kale maraykanku wuxuu ansixiyey $26 bilyan oo kaalmo ah oo la siinayo israa'iil. kaalmadaas ayay ku jiraan ilaa $9 bilyan oo gargaar bini'aadanimo ah oo wax lagaga qabanayo xaaladda bini'aadanimo ee Gaza. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa axaddii sheegay in dalkiisu uu haysto fursad uu kaga guulaysan karo Ruushka kadib marka uu helo gargaarka cusub ee militari ee Maraykanka, kaas oo haatan ay u badan tahay in Koongareeska Maraykanka uu ansixiyo islamarkaana uu saxeexo madaxweyne Joe Biden. aqalka hoose ee Maraykanka ayaa ansixiyey $6.8 bilyan oo gargaar militari ah oo la siiyey Ukraine, waxaana la filayaa in uu dhowaan meel mariyo aqalka Senatku. madaxweyne Joe Biden ayaa ku booriyey aqalka Senatku in ay si degdeg ah u ansixiyaan kaalmada isku dhafan si uu u saxeexo oo sharci ugu bedelo. wuxuuna sheegay in si degdeg ah Ukraine loogu diri doono hubka iyo agab kale ay u baahan yihiin. gargaarkan ayaa qayb ka ahaa $95 bilyan oo kaalmo ah oo loo qoondeeyey in la kala siiyo Ukraine, Israa'iil iyo Taiwan. dhegaystayaal, intaas waxay naga eeg warkeennii dunida. haatanna ku soo dhowaada qaybaha kale ee idaacadda.
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. aan ku bilownay qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada boosaaso ayaa cabasho ka muujiyey sare u kac ku yimi qiimaha shidaalka kaas oo saameyn ku yeeshay maciishadii iyo noloshii caadiga ahayd. ganacsatada shidaalka keenta ayaa iyagoo arrintan ku sababeynaya in shidaalku uu ka qaaligaroobay suuqyada caalamiga ah. wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan inoo haya. maalmihii lasoo dhaafay magaalada boosaaso iyo deegaanada puntland waxaa ka jiray sare u kac ku yimi qiimaha shidaalka la iibiyo taasoo saameyn ku yeelatay gaadileyda. ganacsatada shidaalka ayaa sare u kaca shidaalkaasi u sababeeyey inuu ka yaraaday meelihii uga imaan jiray shidaalka dalka dibaddiisa ah, taasoo sabab ay uga dhigeen in uu isbedbeddel ku yimaado qiimaha shidaalka lagu iibiyo. siciid cabdulaahi maxamuud oo ka mid a ganacsatada shidaalka ku iibisa magaalada boosaaso ayaa v o a uga warbixiyey saameynta uu ku yeeshay ganacsigooda qiimaha shidaalka sare uu kacay. shidaalka laba arrin baa keenta. labada arrin oo shidaalka keenta inuu isbeddel waxaa ka mid ah shidaalka waddanka yaaloo yaraada oo markuu yaraada kadib isbeddel lagu sameeyo, iyo waxaa kaloo keenay shidaalka meeshuu ka imaanayay intuu ka kaco markaa shidaalka dee markuu halka dubi ka kaco iyo halkaan markaa isma keenayso. marka shidaalka muddo dubi ka kaca khadsa waddanka shidaalka in la beddelaa. tusaale shidaalka xagga wuxuu ka marayaaba ka soo qaad boontisigis waxaa ka maraya ama boontisan buu wuxuu ka marayaa dubay. halkaa marka qiimihii khasab marka boontaad ku imaado boontaad lama gadi karo, waa in sinti lagu daraa wax lagu daraa. haddii markaa shidaalku xagga ka raqiisana halkaa waa in iftada lagu sameeyaa dib loo ridaa. intaasa marka waxaa keenta ama shidaalkoo yaraada sidaasaa keenta badanka. marka badanka sidaasa kale shidaal iskama kaco, xaggoo shidaalku ka kaco dubay uu ka kaco ama halkan uu ka yaraado. labadaasaa shidaal keenta inuu isbedelo. hadda qiimaha shidaalka ee taniga oo kale waa meeqa? taniga oo kale 18 wey. horeyna muxuu ahaan jiray? wuxuu 12.4 buu ahaan jiray ama 12.6 buu ahaan jiray. kor buu ka kacay shidaalka caalamka ka kacay. saa darteed baa shidaalka. dhinaca kale qaar ka mid a dareewalada gaadiidleyda magaalada boosaaso, gaar ahaan kuwa ku shaqeeya dareewalada gaadiidka xamuulka ah iyo weliba kuwa u kala safraa xaafadaha magaalada boosaaso ay dhallinyaradu ay ku shaqaystaan, ayaa iyagana sheegay in saameyn xooggan uu ku yeeshay qiimaha shidaalka oo sare uu kacay. waxayna baaq u direen maamulka puntland iyo weliba ganacsatada. anigu magacay waxaa weeye maxamuud axmed samatar, naanaysteedan waa kismaayo. haddii aan ka hadlo shidaalka gaadiidleyda ka shaqaysa magaaladaan ahay ama safar ha u baxo ama magaalada jooge dadka weligeed baa horta ku xirnaa baan ahay. wallahi niyow shidaalku waagii hore 5 litir $2 baa la siin jiray, tana kadha $8 baa la sheegay. macnaha qiimo dhar korortan hadda waxaan qabnaa inay dadkan oo waqtigun waa xun yahay, lacagna ma jirto, dadka dad u naxa inay yimaadaan ama ganacsi hala yimaadaan ama dawladduba ha faragelisay. ummadda shidaalka laga farageliyaniyo waxay doonaan ba iska darayaan. waxaasaan ku darnay maaha in hoos shidaalka iska kaco. wixii keenaya dhaliilaha keenaya waxyaabaha keenaya ganacsatadu waa ka koob heshiiska ummadda Soomaaliya loo heshiiyey. dadka masaakiinta misbixinaysaa marka shaqada aad haysaan bulshadu haysaan. wallahi shaqada dadku rakaabka lacagta dadku qofku wuxuu qooraya lacag ba ma haystaba. hadda maalinta anu garowan aaday loor baan qaaday. marka awal waagi hore waan garowaando oo baabuurta yarka barboxidaan qorayaal qaadna ama dad qaadno dad 160 bawdaad la qaajin. hadda qofkii lacag ma haysto qoranaya wuxuu doono ku siinaya, dadka sabab ma jiraan. marka shidaalka awgiis shidaalku waa qaali, dadkuna baabuurta isku bixin kuwa tagaas. magacaygu waa maxamed saciid ciise maxamed, kana mid ah dhalinyarta darawaliinta ka ah gawaarida tagsiileyda ah ee magaalada boosaaso. niyo waxaan aada uga cabanaynaa adduunka suuq xumo iyo dhaqaale xumaa ka dhacday. wixii gaarigii maanta shidaalkii waa nagu kacay. waagi hore shidaalka qiimihiisu aad bay u hooseeyay, $7 buu ahaa. haddeer maanta waxa weeye $9 iyo dhadhac buu sii marayaa. intaa ka bacdina kor buu u soconayaa. anaga gawaaridii dareewal baanu ka nahay. aniga hadda gaariga kanaan wado anigu malihi, dareewal baan ka ahay. habeenkii $10 baa laga qaadaa, 10 litir baan ku shubtaa. 10 litir anoo aan maalintii waxba ku qaadin baa waxaweeye buu haddana iga dhamaadaa. waxaweeye wadankii suuq ma jiro, dhaqaale ma jiro, waxba ma jiraan, isma bixin karo. ma garatay? de waxaan anagu gudbinaynaa anagoo ashaarteeda aanu haddaan nahay dhalinyarinta gawaarida dareewalinta ka ah inaanu qiimo dhimis naloo sameeyo shidaalka oo ay mataqaanaa il gaara nala ku fiiriyo haddaanu nahay dadka muruqmaalka ah oo ka shaqaysa gaari. isku soo wada duubo inta badan qiimaha shidaalka ayaa isbedbeddel ku yimaada, taas oo ganacsatada shidaalka iibisa ay ku sababeynayaan inuu qaali uu ka noqday dalka dibaddiisa. yuusuf maxamuud, v o a, boosaaso. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ad nagala socotaan. ka ganacsiga maandooriyaasha ayaa sare u kacay wadamada ku yaala galbeedka afrika sida lagu sheegay warbixin ay qortay qaramada midoobay.
warbixintan ayaa muujinaysa in gobolka galbeedka afrika oo wadamada ku yaala ay colaaduhu halakeeyeen uu noqday waddo saameyn xoogan ku yeelata ka ganacsiga daroogada. warbixin ay v o a arrimahaas ka qortay waxay noo haysaa Sahre Ciidle Nuur. sida lagu sheegay warbixintan ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan daroogada iyo dembiyada sanadkii 2022 oo keliya 1466 kilogaram oo kokayna ayaa lagu qabtay wadamada Mali, Chad, Burkina Faso iyo Niger. xaddigaasi oo aad u badan marka la barbar dhigo celcelis ahaan 13 kilogaram oo wadamadaasi lagu qabtay intii u dhaxaysay sanadihii dhegeystayaal warbixintaas qaybaha dambe ee idaacadda ayaad ku dhegeysan doontaan oo ku saabsan ka ganacsiga maandooriyaasha oo sare u kacay qaar ka mida wadamada ku yaala galbeedka afrika. laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. waynu u noqon doonaa warbixinahaas haddaan qodob ka mida wararkii dunida aadno. mas-uuliyiinta degmooyinka ay maamulaan qabiilada ee bakistan ee ku teedsan xuduudda afghanistan ayaa sheegay in miinooyinka 10 sano ka hor dhulka lagu aasay iyo walxo qarxa ay weli yihiin dhaxal dil ah oo looga tegay dadka aagaas ku nool. dadka deegaanka ayaa ka dalbanaya dowladdu in ay kordhiso howlaha miina saarista. warbixintan waxaa bishaawar ka soo diray wariyaha v o da cabdirasaaq waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur. ciise khaan oo ay hadda da'diisu tahay 32 jir ayaa lugtiisa waayey muddo hadda laga joogo 25 sano xilli uu ku sii jeeday iskuulka. waxa uu ku istaagay miino lagu aasay degmada bajuur ee waqooyi galbeed ee bakistan oo ka mid ah degmooyinka kulaala xadka afghanistan. waxa uu sheegay in dhacdadaasi ay gebi ahaanba beddeshay noloshiisa. ardaydii aan isku fasalka ahayn iskuulka hadda waa dhakhaatiir, macallimiin iyo xirfadlayaal kale. waxbarashadii ayaan ka tegey maadaama aanan si fudud ku gaari karaynin xilligaasi iskuulka. miinooyinka ku jira xadka u dhexeeya bakistan iyo afghanistan waxay u badan yihiin kuwo halkaasi lagu aasay intii uu socday dagaalkii midooda sofiyeetka ee afghanistan kaas oo dhammaaday sannadkii 1989. dowladda ayaase sheegaysa in 20 sano ee lasoo dhaafay ay kooxo maleeshiyaad ah halkaasi ku aaseen miinooyin ka badan kuwii xilligii sofiyeetka. asad khaan waxa uu dhiganayay fasalka 9aad ee iskuulka degmada khaybar markii uu si xun ugu dhaawacmay qarax muddo hadda laga joogo 13 sano. labadayda lugood ayaan ku waayey markii uu tuuladeenna ku qarxay hoobiye halkaasi looga tegey. markii hore waxbarashada waan wadi waayey muddo 3 sano ah, laakiin dib ayaan iskuulka ugu laabtay. xilli roobeedyada ayaanan awoodin inaan iskuulka gaadho. inkasta oo aanan lahayn xog rasmi ah, haddana dhegaysi dacwo oo la xiriiray miinooyinka oo sannadkii 2021 ka dhacay maxkamadda sare ee Peshawar ayaa lagu sheegay in gobolka ay qabaa'ilku maamulaan ee koonfurta Waziristan oo keliya ay muddo sannado ah gudahood ka qarxeen 178 miino. qaraxyadaasi ayaa gallaaftay nolosha in ka badan 800 oo ruux. saraakiisha guddiga laanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa sheegay in ay kaalmooyin dhaqaale u fidiyeen qaar ka mid ah dadka ay halkaasi ku saamaysay miinada. waxay kaloo sheegeen in ay bilaabeen hindisayaal ay sare ugu qaadayaan wacyiga dadka ee halista miinooyinka iyo sidii ay u muujin lahaayeen taxadar. waxaan bulshada deegaanka ka wacyigelinaa miinooyinka aasan iyo walxaha halista ah ee aanan weli qarxin ee ku jira deegaanka. dadaalkeenna ayaa diiradda saaraya wacyigelinta innaga oo kula dardaaranna carruurta iyo dumarka in aysan u dhowaan waxyaabahan khatarta ah iyo in aysan guryaha keenin. laakiin dhibanayaasha miinada sida ciise khaan ayaa u baahan taageero dhaqaale si ay noloshooda u maareeyaan. dhibanayaasha waxbartay waa in shaqo la siiyaa, waa in ay si bilaash ah ku helaan lugaha macmalka ah. sidoo kale waa in meelaha miinaysan laga nadiifiyaa qaraxyada si aysan innaga oo kale dhibano u noqon carruurta iyo dumarka. dowladda iyo saraakiisha militariga ayaa sheegay inay sare u qaadeen dadaalada ay miinooyinka uga saarayaan deegaanada khaybar bakhtun khawa.
halkaad warbixintaas waxaa bishaawar ka soo diray wariyaha v o a cabdirasaaq waxaana inoo soo jeedinayey nuur xasan nuur. dhegeystayaal naga raalli ahaada cilad farsamo ayaa goordhoweydna soo food saartay taasoo keentay in aanu qeyb ka mida uun idinka maqashino warbixintii ka hadlaysay ka ganacsiga maandooriyaasha oo sare u kacay wadamada galbeedka afrika sida ay sheegtay warbixin ay soo saartay qaramada midoobay. warbixintaas ayaa muujinaysa in gobolka galbeedka afrika oo wadamada ku yaala ay colaaduhu halakeeyeen uu noqday wado saameyn xoogan ku yeelata ka ganacsiga daroogada. warbixin ay v o a qortay waxaa inoo haysa sahra ciidle nuur. ciise khaan oo ay hadda da'diisu tahay 30 jir ayaa lugtiisa waayey muddo hadda laga joogo 25 sano xilli uu ku sii jeeday iskuulka. waxa uu ku istaagay miino lagu aasay degmada bajuur ee waqooyi galbeed ee bakistan oo ka mid ah degmooyinka kulaala xadka afghanistan. waxa uu sheegay in dhacdadaasi ay gebi ahaanba beddeshay noloshiisa. sida lagu sheegay warbixintan ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan daroogada iyo dembiyada sanadkii 2022 oo keliya 466 kilogaram oo kokeyna ayaa lagu qabtay wadamada Mali, Chad, Burkina Faso iyo Niger. xaddigaasi oo aad u badan marka la barbar dhigo celcelis ahaan 13 kilogaram oo wadamadaasi lagu qabtay intii u dhaxaysay sanadihii 2013 ilaa 2020. maandooriyaha kokeynka ayaa daroogada ugu badan ee lagu qabto wadamadaasi. waxaa kale oo jirta in iyana xashiishka lagu arko dad tahriibinaya amaba iskaga gudbinaya wadamadaasi. warbixintu waxay sheegtay in dowladda wadanka Senegal ay axadii sheegtay in ay qabteen 137 kilogaram oo kokeyna. xaddigaasi oo noqonaya kii abid ugu badnaa ee lagu qabto dhulka laguna qiimeeyey lacag dhan 146 milyan oo dollar in lagu iibinayay. dhacdooyinka noocan oo kale ayaa ku soo badanaya wadamadaasi xuduudka wadaaga ee ku yaala galbeedka Afrika. sanadkii hore ee 2013 bishii Disembar ciidamada badda ee Senegal waxay badda gudaheeda ku qabteen 3 tan oo kokeyna. wadamadaasi ku yaala koonfurta saxaraha Afrika ayaa haatan u muuqda marin cusub oo istaraatiijiya oo loogu talagalay in la iskaga safriyo tirada sii kordhaysa ee kokeynta ee laga soo saaro qaaradda Latin America ama koonfurta America loona tahriibinayo wadamada Yurub. ka ganacsiga daroogada ayaa saameyn xun ku leh nabadgelyada wadamada iyo caafimaadka bulshada labadaba, sida uu sheegay Amado Philip de Andres oo ah wakiilka hay'adda qaramada midoobay ee UNODC ee galbeedka iyo bartamaha Afrika. warbixintan ayaa lagu sheegay in ka ganacsiga maandooriyuhu uu ilo dhaqaale siiyo kooxaha hubaysan ee ku sugan gobolka saxaraha Afrika, halkaasi oo shabakadaha xagjirka ee islaamiyiintina ay kusii faafayaan iyagoo goboladaasi ay la daalaadhacayaan afgambiye isxigxigay. kororhka shabakadaha ka ganacsada daroogada ayaa si weyn looga dareemay suuqyada maxalliga ah, waxaanay horseedaan isticmaalka maandooriyaha oo sare u kaca iyo dhaqaalaha bulshada oo meel halisa ku baxa, sida ay sheegtay Lucia Bird oo ah maamulka kormeerka dhaqaalaha sharci darrada ah ee wadamada ku yaala galbeedka Afrika. ciidamada ilaalada koonfurta galbeed ee dalka Nigeria ayaa isniintii qabtay shixnad xashiishada iyo kiniinada kale ee loo yaqaano tramadol iyo opioid oo ah dawooyin loogu talagalay xanuun baabi'inta balse darooga ahaan loo isticmaalo. badeecooyinkaasi la qabtay ayaa la sheegay in qiimahoodu dhammaa $50,000 sida uu baahiyey telefishinka qaranka ee wadanka Niger. musuq maasuqa iyo lacagaha la dhaqo ayaa ah kuwa ugu waaweyn ee suurtageliyay ka ganacsiga maandooriyaha, waxaana dhowaan la qabtay oo la xidhay dad hawshaasi ku lug lahaa. waxaana la sheegay in qaar ka mida hogaamiyeyaasha bulshada iyo hogaamiyeyaasha kooxaha hubaysan ay fududeeyaan ka ganacsiga daroogada ee wadamadaasi, sida lagu sheegay warbixinta qaramada midoobay. aad bay u mahadsan tahay Sahra Ciidle Nuur oo warbixintaasi oo ay qortay v o a nala socodsiinaysay laanta afka Soomaaliga v o a naga socon dhegeystayaal naga raalli ahaada cilad farsamo ayaa saakan haysata oo sidii aad maqlayseenba labada warbixinood warbixintii hore iyo warbixintan ayaa iska dul ciyaaray. haddii aan hore ugu sii soconno meelo badan oo ka mid ah
soomaaliya waxaa haatan ka socda dadaallo kala duwan oo la doonayo in lagaga guuro nidaamka xulashada ee ay odayaasha dhaqanku saameynta ku leeyihiin islamarkaana in loo guuro nidaamka dimuqraadiga ah ee ay dadweynuhu soo doortaan xubnaha metelaya. ururada bulshada rayidka ah ayaa door weyn ka ciyaara arrintan, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere. hay-ado fara badan oo ka shaqeeya horumarinta iyo amniga ayaa ka jira dalka soomaaliya, kuwaasi oo 20kii sane ugu dambeeyey ka qaybgelayay nidaamka dimuqraadiyeynta, nabadgelyada, dibudhiska soomaaliya iyo arrimo kale oo ku saabsan qaabka dadka looga wacyigeliyo nidaamyada guracan ee lidka ku ah dimuqraadiyadda. cabdulaahi rubaani waa agaasimaha hay-adda horumarinta siyaasadda iyo nabadgelyada ee dalka soomaaliya, gaar ahaan fadhigeedu yahay boosaaso oo ka tirsan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland. waxa uu maalmahan u joogaa nairobi kulamo uu la leeyahay hay-adaha wada shaqaynta dhinaca dimuqraadiyadda iyo wacyigelinta, iyadoo hay-addu ay tahay hay-ad think tank ah ama kuwa markaasi fikirkooda ka raarida ama gaarsiiya meelo badan oo soomaaliya ka mid tahay. maraan kula kulmay cabdulaahi rubaani magaalada nairobi waxaan weydiiyey bal kulamada nairobi iyo waxyaabaha ka soo baxay. bismillahi raxmaan raxiim. yaasiin waa mahadsan tahay. nairobi waxaan u imaanay inaanu kulamo dhaxalgala la qaadano bartnerskeyga ama hay-adaha dowladnimada, dowlad dhiska soomaaliya, nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda ka shaqeeya ee aanu qaarkood nahay howlwadaag, qaarkoodna aanu hadda halkaan aanu ku yara kulmaynay. waxa ugu muhiimsana ka hadlayna waxa waaye dalka soomaaliyeed waa dal dowladnimadiisu runtii ay curdun tahay, weli aysan si dhammaystiran cagaha aysan ugu istaagin. waxaa ugu weyn oo soomaaliya guud ahaan aada looga hadalhaya ama aada loogu baahi qabaana ay tahay in doorasho xor ah oo xalaal ah runtii laga hirgeliyo. marka waxyaalahaan u nimaadna waxaa ka mid ah inaan qaybtayada ka xarun ahaan aan qayb ka noqono, aan qayb ka qaadano sidii looga horgelin lahaa dalka soomaaliyeed dowladnimo dhammaystiran oo dadku ay soo doortaan ciddii runtii ay matali lahayd. waxaanu runtii isla garanay cidaha aanu la kulannay inaan ka wada shaqayno sidii loo hirgelin lahaa nidaamka dimuqraadiyadeed iyo sidii qayb contribution aan ugu yeelan lahayn nabad dhiska soomaaliya. maasantahay. cabdulaahi rubaani, waxaad ka mid tahay ururada bulshada ama hay-addiinu ay ka mid tahay ururada bulshada ee ka howlgala puntland iyo meelo kaloo soomaaliya ka mid a. waxaad soo qaaday arrimo ku saabsan doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda. puntland maxay ku kala duwanaayeen markii la eego doorashadii 3 degmo laga sameeyey iyo tii dambe uu ku soo baxay madaxweyne deni? bismillahi raxmaan raxiim. horta doorashooyinka puntland ka hirgalay qof iyo codka waxay ahayd doorasho heerkeeda golo degaan yahay ee kusoo baxayeen xisbiyadii siyaasiga ahaa ee 5 sannadood soo socota puntland siyaasadeeda dadka ku matali lahaa ama xisbiyadii hogaamin lahaa nidaamka siyaasiga ee puntland 5 sano soo socota. madaxweyne saciid cabdullaahi denina wuxuu kusoo baxay doorasho dhaqanka dib loogu laabtay oo 66 ay isimada dhaqanku soo xureen, kabacdina hoolkii baarlamaanka la galay oo madaxweyne ku noqday. laakiin waxaa kala yaro duwan oo u baahan runtii in la iftiimiyaa waxay tahay doorashadii 3 degmo waxaa kusoo baxay dad barakacayaala, waxaa kusoo baxay haween oo 30% qoondadii ay dastuurka iyo xeerarka ugu qorneed runtii helay. doorashadii dambeeto ee 30 degmo puntland ka dhacday dhammaystirka ahayd oo weli 3 degmo ay dhiman tahayna runtii wax ay kusoo baxay wax ka yar 1% oo haweenka ah, wax idps ah ama dadka aan barakacayaasha ama dadka puntland yimaaday burburkii kadib puntland ku noolaa ee xuquuqda dastuuriga ay xaq u siinayeen aysan runtii ugu soo bixin. waxay ahayd isbedelka ku yimaaday xeerka doorashooyinka oo runtii aada u malayso guddigu inuu aada u rifay, aadna wax ka bedel uu ugu sameeyey. marka taasaa yaro kala duwaneed. laakiin tan ah doorashadii madaxweynuhu kusoo baxay iyo tii golayaasha deegaanka qof iyo codka kaaf iyo kala dheeri ayay ahayd. waxay puntland ahayd inay 20 iyo dhowr sano ka hore ee aado nidaamka qof iyo cod oo dowladda lagu soo doorto runtii oo baarlamaanku ku yimaadaanin maysan hirgelin. lifaaqii axdigii 1998 ayuu madaxweyne saciid cabdullaahi deni isaguna kusoo baxay. waxaa la dhegaystaa inta badan adduunka markaad eegto dadkan fikirka ururiya ee aqoon-yahanada ee adinku aad ka mid tahiin think tank la yihahdo. soomaaliyana waanay soo badanayaan, in la dhegaystana uma badna. madaxdu see idiin maqashaa? maxaad se tala haysaa?
runtii xarumaha cilmi baarista ama tintankyada iyo guud ahaan bulshada rayidka ay cod bay leeyihiin ah inay soo jeedin sameeyaanin waxay aaminsan yihiin ama aysa xalka ay u arkaanin madaxduna waa ciddii dalkan loo doortay ay tahay aragtiyaha dhaxalgalka runtii inay qaataanin marka xarumahan iyo bulshada rayidka guud ahaanba waxay sameeyaan soo jeedimo hadday dimuqraadiyadda noqoto hadday noqoto dowlad wanaagga hadday noqoto isla xisaabtanka hadday noqoto fikirada dhaxalgalka u noqon kara qaranka lakiin in la qaato iyo inaan la qaadan waxay ku xirantahay madaxda waqtiga dalka ee hogaaminaysa soomaaliya mushkiladda ugu weyn oo 30 sano wax ku dhow hadda soomaaliya ka jirtay waxay ahayd doorashooyin waxa taagna annaga waxaan aaminsannahay nidaamka doorashooyinka ee hadda in laga guuro awoodda la siinayo NCC-da ama madasha wadatashiga qaranka sharci xeer loo bedelo baarlamaankana la horgeeyo kabacdina procedure aan waxba laga bedeli karin ay ku yimaadaan sidaad yaasiin waad ogtahay doorashooyinka soomaaliya waxay ka yimaadeen xeer xildhibaanka uu odagu soo xulo waxay martay xeer in ergo 51 ay wax soo doortaanin iyo tii ugu dambeysay aad u rasnayd oo awood la siiyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadii oo ay say rabaan ka yeelaan in ciddii baarlamaanka qaranka geli lahayd marka in laga gudbo oo xeerka la adkeeyo oo nidaamka la adkeeyo oo nidaam sharci ah oo baarlamaanka la horgeeyo noqdo oo aan waxba laga bedeli karin aan awoodna la siin meesha awoodda laga siinayo maamul goboleedyadii dowladda dhexena awooddii la siiyo shacabka iyo dadka waxgalka baan anaga aaminsanahay aad ayaad umahadsantahay kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi rubaani oo agaasimaha hay-adda horumarinta siyaasadda iyo nabadgelyada oo aan kula kulmay magaalada nairobi yaasiin sawir dheere v o a nairobi